bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah magacayga nuur maxamed weli abshir oo ku magac dheer nuur shongo oo ku dhashtay magaalada muqdisho oo hadda mucjisooyinka oo rabbaani isii oo hibe ahaan oo ilaahay isii oo maanta aan rabo idaacadda TV Universal oo inaan ka muujiyo aan maanta aan jeclahay oo haddana waxaan oo i horyaalaan yihiin oo na arki doontiin ugu horreyn bal waxaad ka warantaa xagee ku dhalatay adiga ugu horreyn bismillaahi raxmaani raxiim waxaan ku dhashtay xaafadda Howlwadaaq gaar ahaan suuq Bakaaraha imise sana jirtaa hadda waxaan dhashtay 1978 aan dhashtay waxbarashadaada bal ka waran hadda maxaad waxbarasho iyo ka waran waxbarashadeeda hadda waxaa aniga farsamadeyda hadda aan ku shaqaysto oo xifrad leh waa fuundanimo hadda ka shaqaysaa hadda waxaan joogaa Shama Hotel aan joogaa aan ka shaqeeyaa marka ka waran bal arintan iyada ah ee aad haatan ilkaha ku qaadayso intaasoo kiilo qof bini'aadana birahan allaabayso ma waqti dhow bay ahayd mise kal horaad bilowda hawshan wallahi hawshan horta waqti dhow ma bilaano anoo yaraan bilaabay taas ay tahay oo ugu qasabtay dakor oo anigoo tahriib aan galay ka soo noqday oo dekada Boosas aan u joogo oo xamaali ahaan aan u tagay waxa la dhahay nin waxa tahay oo Ethiopian xamaali kama bixi kartid markaas aan nimankaas ku sheexan nabarnimo niman Ethiopian nin Soomaaliyan ah shaqada igu dara bas sida markaan mid wuxuu yiri waa nin Soomaaliyan oo shaqada aan ku darno shaqadii aan galay ilaa amarkiisa markaan sidii adiga waa taqaan shaqaale markay meel isku yimaadaan waa la isxujeeyaa waa la isdhibaa wax walba la isku sameeyaa marka tartan aana marka waxa loo sameeyay in oo kiishkaas maanta ninkii qaado doontaas digayso oo ka shaqaale ka noqonaa tii awdeed ilaahay ugu guulsiyay saas awdeedan kuwan ku soo bilaabay ilkaad ku qaadamay marka kiishka ilkaan ku qaaday wada marka munaasabadan maxaad hadda u qabatay marka munaasabadan hadda waxa uu qabtay ninka madow oo maanta oo Afrika ah oo Kenya u dhashtay Mr Obama oo maanta madaxweynaha cusub oo ka noqday Mareykanka awdeeda aan u qabtay haddana ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa in liska dhaafo qabiilka iyo midibta koorka oo sidii oo ninkaas oo kale oo la iskugu daysado oo wax walba cadaalad loo wada qabsado aad baad mahadsantahay